qarnigan hadda la joogo dalalka iyo dawladaha caalamku kuma tiirsana oo keliya codad ciidan mid dhaqaale hoggaan hufan horumar heer aqooneed mid wax soo saar dadka iyo dawladaba ay leedahay laakiin waxa udub dhexaad u ah hay-adaha nabad sugidda iyo sirdoonka oo kaalin mug leh ka qaata ogaanshaha weerarada ka imaan kara gudaha dalka iyo dibaddiisaba ilaalinta xogaha iyo siraha gaarka ah ee waddanka ka hortagga iyo gacankudhigidda basaasiinta shisheeye ogaanshaha cadowga qarsoon soo ururinta siraha iyo siyaasadaha cadowga fulinta howlgallada halista ah sidaa darteed waxaa la odhan karaa sirdoonka waxa uu xilkoodu yahay raadinta soo ururinta iyo soo gudbinta siraha qarsoon si loogu xoojiyo xidhiirka danaha amniga iyo ammaanka waddanka uu leeyahay ciidanka loo husho ka mid noqoshada iyo ka qayb qaadashada waaxaha sirdoonka waxaa loo kala saaraa laba qaybood qayb u gaar ah dalka gudihiisa oo u sii kala baxda waaxo kala duwan iyo qaybo ku howlan sidii ay daboolka uga qaadi lahaayeen siraha qalaada ee qarsoon sidoo kalena waxay fuliyaan shirqoolo loo baahan yahay waxaana lagu magacaabaa basaasiin basaas waa eray loogu yeedho ruuxa sida shakhsiga u dabagala arrimaha gaarka ah ee qofku leeyahay sida asxaabta ehelka qaraabada iyo qariibka qofka ka tirsan ciidamada sirdoonka ee ka howlgala dalalka shisheeye diin ahaan iyo dastuur ahaanba waa dembi adag basaasnimadu balse waxaa jira xilli iyo xaalad la ogol yahay oo ah marka la basaasayo colka iyo cadowga ka soo horjeeda dalka iyo diinteena sida uu qofka ugu biro hay-adaha sirdoon waxaa looga baahan yahay inuu lahaado sifooyinkan geesinimo iyo dheelitirnaan maskax furnaan hal abuurnimo aqoon heer jaamacadeed ah waddaniyad iyo waddan jacayl xirfado uu ku shaqaysto sida saxaafad darwal sawirqaada iyo wixii la mid ah waa inuu ugu yaraan ku hadlaa 2 ilaa 3 luqadood oo ajaanib ah intaa kadib waxaa la marinayaa baaritaan caafimaad haddii uu ku gudbana waxaa loo bilaabayaa tababarka sirdoonka caalamka intii ka dambaysay dagaal weynihii koowaad iyo kii labaad waxaa dunida aad ugu xoosaystay howlaha basaasnimo iyo sirqoolada lagu khaarijinayo madaxda adduunkan waxaa si qarsoodi ah ugu tartamaya uguna diraraya ciidamo sirdoon oo ka tirsan dowladaha iyo dalal ka mid ah quwadaha adduunka waxaana sabab looga dhigaa dagaalkii koowaad iyo kan labaad dagaalkii qabooba dagaalkii dowladaha Carbeed iyo Yahuuda dagaalkii Fietnaam soo bixitaankii mintidiinta dagaalkii Soviet iyo Afghanistan colaadda Kashmir dagaalkii Ciraaq raadintii Osama bin Laden si kastaba ha lagu sababeeyay waxa hay'ado sirdoon oo ka sheegan dunida inteeda kale waxaana ka mid ah ISI Pakistan waxa la aasaasay sanadka 1948 xarunteeda dhexe waxay ku taala magaalada caasimadda ee Islamabad ISI waa hay'ad sirdoon oo caalami ah waxaana lagu amaanaa howlihii ugu cuslaa ay qabatay midoogii Soviyetkii gudaha u galay waddanka Afghanistan sameyntii hubka nuclearka ee Pakistan oo ay ka dhigtay gabi ahaanba mid aanay dunida ka warqabin sameyntiisa inkastoo lagu doodo in markii dambe ay ka warheshay hay'adda RAW ee dalka Hindiya waxaa kale oo lagu amaanaa qabaha iyo farsamooyinka cajiibka ay ku howlgasho inkastoo aanay weli xal u helin daaqaadista weerarada Taliban waxaana lagu magacaabaa hay'adda sirdoonka ugu xooga iyo xeelada badan dunida hay'adaha sirdoonka ee Pakistan waxaa kale oo ka mid ah MI sirdoonka ciidamada militariga NI sirdoonka ciidamada badda IB sirdoonka ciidamada difaaca shacabka AI sirdoonka ciidamada codka Mossad Israa'iil waxaa la aasaasay sanadkii 1949 waxaana laga maamulaa Tel Aviv Mossad waxay ka mid tahay sirdoonka adduunka ugu sharka iyo shirqoolka badan waxaanay caan ku tahay qaarijinta iyo aargudashada Dr. Basil Al-Qubaysi 1973 Dr. Mohammed Hashmari 1972 Hussein Al-Bashir 1973 Ahmed Fawjiki 1973 waxa aanay ku qaadeen Ali Xasan Saleh 1979 Beirut Ali waxa uu ahaa hogaamiyey weerarkii Munir ee la magac baxay Teembartii Madoobay wadii Ahadaad oo ka tirsanaa ururkii dib u xuraynta Falastiin kana qayb qaatay afduubyo loo geystay diyaaradaha Yahuuda waxaana lagu dilay dalka Belgiumka
kadib markii Mossad sun uga soo dartay shukulaato uu aad u jeclaa, waxaana sidaa buugaagta ku sheegay Aaron Killen oo ah sirdoonka Yahuudda haatan si howlgabay. Mossad waxay xoogga saartaa sida ay u difaaci lahayd danaha Israa'iil iyo dadka Yahuudda ah oo bartilmaameed u ah cadowga adduunka, waxaana iminka madax u ah Yossi Cohen.